warka soo baxay booliiska dalka Swedaen ayaa waxa loogu diigay dadka ku nool dalkaasi in ay ka jawaabaan ama ay qabtaan telefoonada dibadda ee dalkaasi isla markaana wata furaha 252 kadib markii la sheegay in telefoonadaasi lagu dhac lacagaha ku jira telefoonada ay dadku wataan 26 iyo 27 bishan May ay booliiska dalka Swedaen sheegeen in telefoonada dibadda ee wata furaha 252 lagu dhacay dad badan kuwa kale lagu bartilmaameedsaday isla markaana dad badan oo dalkaasi u dhashay ay dacwado u gudbiyeen laamaha ammaanka sidoo kale booliiska dalka Swedaen ayaa sheegay in telefoonada wata furaha 252 in dadka dalkaasi laga soo garaaco saqda dhexe ee habeenkii marka ay dib ugu celiyaana uu ku jawaabo machine iyo music isla socda kadibna ay socoto xawaare dheereeya oo lacag jarasho ah dad badan ay arintaasi ku dhacday dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay Telia waa mid kamid ah shirkadaha telefoonada ee dalka Swedaen waxaana macmiishada uga digtay in ay dib ugu celiyaan telefoonada aan la aqoon ee dibadda ka soo gala isla markaana wato furaha 252 oo ay sheegtay in dadka lagu dhaco dadka ku nool dalka Swedaen ayaa dhowrkii sano ee ay soo dhaafnay u isticmaalayay adeegyada True Caller ee lagu shubto telefoonada kaas oo ah adeega muddo kooban ka warbixinaya nambarka ku soo garaacay cid wadata iyo halka uu joogo Lindsay Lamont oo ah shirkadda True Caller ayaa warbaahinta gudaha dalka Swedaen u sheegtay in ay heleen telefoono badan oo cabasho ah wuxuuna intaasi ku daray in ka badan 1000 fariimood iyo wicitaano aan saxnayn maalinle loo sameeyo kuwaas oo fariinta dib u soo garaacda ku reebaya telefoonka kadibna markaad wacdo ay adkaatay in aad ka laabato